English kii caqabadihii aan kala kulmay dhamaantiin soo dhawaada caawan waxa falanqeyn doona barnaamijkan biidni Ilaahi Kariim waxaan ku falanqeyn doonaa videogan waxaan rajaynaynaa in anfici doon dhammaan ardayda Soomaaliyeed kuwaas oo hamigooda iyo rajadooda oo yahay inay wax barasho imaadaan dalka dibadiisa biidni Ilaahi Kariim magacaygu waa Canab Cabdirasaaq Cali inta ku xiran dhammaan aaladaha aad ka isticmaalo baraha bulshada waa idin kaga mahad celinaya ku xirnaanshadiina sidoo kale commentiyada quruxda badan amar walba iga soo bixisaan jazaakallahu khayr dhamaantiin soo dhawaada inta hore aqoonina barasho wanaagsan channelkeena ama baraha bulshada aaladaha aad ka isticmaalo dhammaan waxa ku soo gudbinaa waxyaabaha ku saabsan waxbarashada iyo self developmentiga wali waxa ku gudi jirnaa waxyaabaha ku saabsan waxbarashada hadii aan qalad koorsooyin kala duwan iyo sidoo kale waxyaabo ka saacidi doona arday walba inuu imaado dalka dibadiisa biidni Ilaahi Kariim adina waxa rajaynaa inuu ku anfici doono dhammaan arday walba rajadiisa iyo hamigiisa ay tahay inuu imaado dalka dibadiisa waxna uu ku barto biidni Ilaahi Kariim tan waxay noqonaysaa caqabadihii ugu weynaa ee aan la kulmay ee ardayda badankoodna ay la kulmeen taasoo isbuucii soo dhaafay ama week hore waxa soo sameeyay video kaasoo ku saabsanay markii aad sameynaysiin codsiyada ama requirementska jaamacada ee soo diraan ama aad buuxinaysiin inay aad uga taxadirtiin ama aad ka digtoonaatiin tan waa caqabadii aan iga qabsatay waxyaabo aan ku fududaaday jirto laakiin alxamdulillah rabbil caalamiin ugu dambeyn aan soo gudbay waxaana kamid ahayd codsiyadii aan gudbiyay ama codsiyadii ay soo dirtay jaamacada badankood inaan buuxiyay alxamdulillah rabbil caalamiin intii aan kaga imaanay wadanka markay ay soo dhamaato wax walba ku saabsan codsiyada ama aad buuxiyay requirementskaas qayb kamid waxa jirto wadanka inta joogto kusoo buuxinay horna waa soo sheegay qaybna marka registration jaamacada aad sameynaysid markii waxay dhan ay soo dhamaadeen oo wadanka ay imaaday oo week hore registration jaamacada ay u aaday waxa liibeedii waxyaabihii ugu hore oo requirementskay ugu dambeeyay waxa kamid ahaa inaan haysto TOEFL certificate hadii aanan haysanin inaan 1 year English qaadanayo ama aan galaayo imtixaan ani waa fududeystay waa sahalsaday hore waxa u haystay certificate English kadib jaamacada waxay dhahdeen kaliya anaka waxa aqbalnaa ma qaadanaa TOEFL certificate wax kale ma qaadano mana aqbalno markii intaas leedahaynay anna ma haysanin TOEFL certificate-ka waan ka sheekan doonaa ama mowduucyo badan ka soo qaadan doonaa waxyaabaha idinka saacidi doona biidni Ilaahi Kariim TOEFL certificate-kan waa certificate aad iyo aad muhiim ah wadamada badankood ama internationaliskan dadka ee galaan asina waxa ka soo sameyn doonaa mowduuc gaar ah waxa jirto certificate caalami ah kaasoo ay kamid tahay TOEFL Cambridge iyo IELTS saddexdaas ugu waxyaabo waxay kamid tahay shahaadooyinka ugu caalamisan ana saddexdaas biyaysan laakiin shahaad English waa haystay kadib waxa dhacday in leedaho waxa galay imtixaan intaadan qaadanin ka hor Englishka waxa lagaaga baahanyaa laba imtixaan galay professional examka intaadan galin ka hor imtixaanka caalamiga waxa galaysa imtixaan oo normal ah taasoo levelkaaga lagu qiimeyn doono hadii levelkaaga intermediate oo soo gaari waayo in aadan galinin professional examka waana kana documentiga aan ku buuxinayo requirementska language proficiency exam midka u dambeeyo waaye waxyaabaas markaa soo dhameystirtid registrationka meelaha la isku qabsaday kamid tahay kan exam aad iyo aad u adag waaye taasoo dadka badankood ay yaqaanaan ama ardayda jaamacadaha wadamada kale u imaado ama dadka caalamka ama shaqooyin markay codsanayaan oo kale ama qofka markuu macallin noqonayo kale waxyaabo badan oo qofka markuu sameynayo kambaniyada ama organizationada waxyaabaha dadka maxay kamid tahay codsiyada laga rabo inay buuxiyaan kaliya ma ku xirna jaamacada kaligiisa kadib waxa dhacday in aan imtixaankii aan galay levelkaygan oo soo gaarin levelka liiga rabay waxaan lagu dhawaa inaan qaadataa Englishka si toos ah u aadaa galaas hal sano halkaas sano waxay tahay in waqtigaagana oo dheeraaday inta jaamacadii aad ogeyd inaad qaadanaysid ama aad soo talagashay lacagtana ay noqon doonto lacag aad iyo aad u fara badan oo double halka sano normal waaye laakiin ardayda badankood waxay ku haraan ama maxaa lahaa oo problem ama caqabad ay ka qabsadaan markii ay qaadanayaan galaasyada kuna adag inay soo baasaan inta la gaarin professional examka alxamdulillah rabbil caalamiin ani ilaahay wuu ii fududeeyay 6 bil marka oo laba level aan soo qaatay Englishkeegan aan ku soo wada baasay grade fiican aan ku soo baasay waxa ii suura gashay inaan galo
ardayda kale saadana sanadada kale imaanaya 6 bil kadib semester cusub waa bilaabanayo in fursad kale aan u helo inaan imtixaanka professionalka mar kale aan gali karo oo intaanan galin ka hor haddana waxaa weligu sii haystay inaan imtixaanka intermediate-ka galo alxamdulillahi rabbil caalamiin imtixaankaas waa kusoo baasay haddana professional examka imtixaankiisaa galay imtixaankaasna waxaa ku jiray maalintii markaa imtixaankaas galayay qaadatay 4 saacadood waana waqtiga u go-an oo laisla ogyahay waxaana ku galaysaa 4 skills ee kala duwan ee englishka oo leeyahay listeningka readingka writingka iyo speakingka saddexdaasna 4taas oo xirfad ah ku galaysaa ama 4ta xirfad ay leedahay englishka waxayna leedahay waxyaabo u go-an ruulisyo sharciyo taasoo aad iyo aad u adag qofka inuu kusoo baaso ama inuu ku guuleysto alxamdulilah ilaahi wuu isqir leh bil kadib waxaana ii suura gashay inaan si toos u bilaabo galaaskeyga laakiin badanka ardayda way ku adkaataa waxyaabaha keenayan waxay tahay kadisay ku noqotaa problemska ugu badan ardayda ee englishka ee ugu baasaynin ama maxaa la dhahaa niyad ma u haayaan qofka magu soo talagalin markii waxyaabahan dhan ama mawduucyada ama oo soo buuxinayay wuxuu yareysanayay laakiin waxay noqonaysaa caqabad aad iyo aad u weyn taasoo la rabo inaad ka digtoonaatid waxaan rajeynayaa in arday dambe oo Soomaaliyeed aysan ku dhicin haddii aad awoodid aad kartid inaad had Englishkaaga baratid haddaa qaadan kartid TOEFL exam certificate-kaaga inaad qaadatid jaamacadaha way kala duwan yihiin jaamacadeena maxay ahayd shuruucdeeda inaad haystid TOEFL certificate qaar waxaa laga yaabaa IELTS inay kugu xujeyso qaarna Cambridge kugu xujeyso way kala duwan yihiin jaamacad ku tala gashid lacala haddii ay kugu dhacdana saan oo kale waxyaabaha filan inaad aragtid inaad aqbashid oo maxaa la dhahaa ilaahay subxaanahu wa tacaala tala saaratid juhdi iyo dadaal fara badanna aad ku bixisid alxamdulilaahi rabbil caalamiin ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu ii saqiray marka hore waxay igu ahayd caqabadihii ugu weynaa meeshan aan kala kulmay ku dhawaad isbuuc imtixaanaadkii wixii aad diyaarinayay levelka ma soo gaarin lii dhahay waa qaadanay waqtiga ugu soo talagalay waqti ka dheer inay noqoto lacagta inta jaamacadda ugu soo talagalay in laba jibaarkeed ay noqoto wax walba ay noqdaan wax aad iyo aad u adag haddana Joyce kale ma haysanin jaamacadaas already maxaa ku qaatay ama residentiga ama maxaa la dhahaa iqaamada wadanka aan ku joogayay oo wax walba ay siisay waxay noqonayd caqabad aad iyo aad u weyn inaan dhaho haddii ko jaamacadan marawi waxyaabo kale raadinaa waa aqbalay maxaa la dhahaa ilaahay subxaanahu wa tacaala u tala saartay maantana waxay ii noqotay waxaa wax ku faa'iido alxamdulilaahi rabbil caalamiin marka laga soo tago waqtiga iyo lacagtaba ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu ii fududeeyey imtixaanaadkii waa kusoo baasay caqabadaha shalay dhan maanta waxay noqotay waxaa ka xamdiyo ku shukriyo ilaahay subxaanahu wa tacaala aa uga xamdiyo aa u shukriyo marka haddii waxyaabahaas oo kale ay ku qabsadaan ama caqabadaas caqabad ka duwan inaadan weynaysanin Joyce-na aadan lahayn inaad qaadatid juhdi iyo dadaalna aad ku bixisid waxyaabaha mas-uuliyadaha kaa saaranna aad samaysid naftaada dib aa ugu noqotid dadaal badanna aad ku bixisid ilaahi subxaanahu wa tacaalana aad u tala saaratid wax walbana waxay kuu noqon doonaan wax fudud oo sahlan aad ka gudbi kartid ay caqabadee doontaa noqoto ani caqabadeeda Englishkaasoo ahaay iyo inaan waqtigaas dheer qaato iyo maxaa la dhahaa kubaasitaankiisoo aad iyo aad u adag dadka badankood ay kusoo laabtaan ardayda badankood way ka tageen dad qaar tahriibo qaar maxaa la dhahaa jaamacadii ka baxo qaar marar badan ay kusoo noqoto waxyaabo kala duwan noqotay xataa marka xaqiiqda ka hadla ani awoodeeda inta ma dhameen oo Englishka marka runta aan sheego mana ku sameyn qash iyo waxyaabaas mana awoodid inaa qashto waxyaabaas aad samaysid laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala aad iyo aad u tala saartay ahaan idinkugu darsanaya markaa aragtid waxyaaba inay yihiin waxyaabo adag aadan ka baxsan karin naftaada eedan karin ee awoodin inaa ilaahay subxaanahu wa tacaala kow aad ka dhigtid waxyaabaha oo tala saaratid kalsoonida iyo rajada ilaahay ka qabtidna ee weynaato kale inaadan ka reebin salaatuleelka taasoo ah sirta horumarka mid adduuni mid aakhiro taasoo labada daarba kugu guuleynayso kuuna fududeynayso ama kuu sahlayso nolosha maanta aan noolnahay alxamdulilaahi rabbil caalamiin an ilaahi subxaanahu wa tacaala caqabadaas oo isoo saqiray maantana waxay tahay waxyaabo cashire oo normal wax walba oo arko inay wax normal agtay ka noqdaan aa ka sii socdo adina waxaa ku rajeynaa beri inay saas kuu noqoto haddaa caqabadaas oo kale aragtid ha niyad jabin ha cabsanin ha ka bixin wadanka ha ka tagin ha ku fikirin inaad dib u noqotid ee ku fikir saa waxaan ugu baxsan lahayd biidni illaahi alkariim ilaahi subxaanahu wa tacaala wuu kuu saqiri doonaa anna waxaa ku rajabeyna ama ku hamweena arday walba Soomaaliyeed oo caqabadahaas oo kale ay qabsadaan inaa ku noqdo garabkooda inta karaankeyga aa karo inaa soo jeediyo aa idin tuso waxaas inay yihiin waxyaabo common wax adeeg aa kugu ekeen
waana gudbi doontaa xitaa hadday maanta kasta biidnillaahi alkariim oo waqtiga video ma kusoo gaaray xilligaa daawan doontidba haddii ay caqabad kasta ilaahay subxaana watacaala waxaa kaaga rajeynaya inuu ilaahay kuu fududeeyo oona amurahaaga mid adduuniya mid aakhiraba ilaahay subxaana watacaala ku sahlo videogan caawa intaasoo ku egyahay waxaan rajeynaya inaa wax badan ku faa'iidi doontiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu